أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: باب أداء الخمس من الإيمان. باب هذا مثل باب أداء الخمس أي خمس الغنيمة. غنيمة markii 5 meelood loo qaybiyo hal meel oo kamid ah gudashadeeda oo rasuulka loo guto sallallahu sallam wa baraka alayhi min al-iimaani iimaanka ay kamid tahay ayuu u baabiya wali sheekh rahimahullahu ta'ala wuxuu ku dhex jiraa kitaabul iimaan iyo masaa'ilul iimaan wali waxa uu si gaar ah uga hadlayay khisaashii iyo tilmaamihii iimaanku uu ku kobcayay oo iimaanku uu ku siyaadayay waxaa ka mid ah waxyaalaha iimaanku uu ku siyaado i'daa'u al-khumus min al-ghaniima ghaniimada 4 akhmaasna oo 5 meelood inta loo qaybiyo 4 meelood oo ka midana dadka qaanimiinta la siiyo oo dagaalka galay halka meeloo soo hartana rasuulku uu lahaa jiray sallallahu sallam wa baraka alayhi. qaala al-imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala حدثنا علي بن الجعد البغدادي. علي بن الجعد البغدادي بخاري أبو داود أيا وحكوريين كان يصوم 60 سنة كان يصوم يوما ويفطر يوما 6 سنة شيخا وحليري مالنا واسومي جري مالنا وافر سنان جري وكصيام داود وصومك نبي داود وكلا عليه الصلاة والسلام أيو عادك دكتي علي بن الجعد البغدادي وقد رمي بالتشيع وحاك له لغو توري شيخ الشيعنمنا ولغو توري لكن تشيع عيسو علماء المحدثين توحيراهم وتشيع يصير والشيعنمة أدوين موصا لهين ولذلك بخاري والدليشدي رحمه الله تعالى. قال حدثنا علي بن الجعد البغدادي كتاب كان وحو كل حليه هبا مبديو شيوخ لساس وكلا حوغا وحلوغا شيغو بخاري قصاء مبديو حديث تدو 13 حديث 13 حديث كليه هو كتابك كليه هي علي بن الجعد البغدادي. قال وحو يري الشيخ علي أخبرنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث عن أبي جمرة ونصر بن عمران البصري. نصر بن عمران البصري المعروف بأبي جمرة وكان مترجما لابن عباس وترجمانك عبد الله بن عباس وها أبي جمرة. قال وحوير أبي جمرة كنت وحنا أقعد متفرست مع ابن عباس عبد الله بن عباس معيسان لفا دينجري يجلسني حال إفريسين جري عبد الله بن عباس على سريرتي سوء فريسين جري سدو إكرامين جري عبد الله بن عباس سريرتي سوء فريسين جري ما دام ترجمانك يسوي هاي oo marka fataawaadka uu bixinayo iyo masaa'ilka uu bixinayo dadaan afka carabiga ku hadlaynin markuu Abdullah ibn Abbas qaabilayo ama fataawaad iyo masaa'il uu doonayo inuu uga jawaabo dad caajim ah ayuu tarjumaan u ahaan jiray Abi Jamrata maxaa ila luqada cajamiga iyo luqada carabiga labadaba isagu waa isku yiqiinay. faqala markaas wuxuu yiri Abdullah ibn Abbas aqim cindi agtayda kunaga hatta aj'ala laka ilaa an kaaga yeelo adiga sahman nasiibkaas oo min maalkayga ka mid ah maadaama mutarjimkayga tahay xoogaa xoolaa si aan ku siiyo balagtayda muddo joog faaqamtu macahu shahrayn 2 biloodaan micigiisa aan nagaaday Abdullah ibn Abbas thumma qaala markaasuu Abdullah ibn Abbas wuxuu yiri inna wafda Abdul Qays wafdigii Abdul Qays lama ataw nabiga markay u yimaadeen sallallahu alayhi wasallam قال وحي رسولك الله صلى الله عليه وسلم من القوم قومك واكوما أو من الوفد أما وفدك واكوما قالوا وحي إلهين ربيعا ويوفدك قال رسولك صلى الله عليه وسلم وحي مرحبا سودوين بالقوم عن سودوين أو بالوفد بمعنى سادفتم مكانا مرحبا مكانا واسعا مكان واسع هاد قابشين ودتم هذا بالقوم قوم كان واسع وهو بلارا ميل بلارا كسودو هذا عمله أو بالوفد أما وفدك والله بلارا غير خزايا كوهوغي غير كود حالاتهين وغير خزايا هوغان ولجيدada laga leeyahay nabigu uu ka nafiyay sallallahu sallam wa baraka alayhi
wafdigan waxaa loola jeedaa annahum aslamuu dawcan waxay soo islaameen iyagoo iska daayicin oo cidna aysan khasbin min gayri xarbin aw sabyin yukhziihim wa yafdaxahum dagaal iyo qafaal fadeexeeya ama hoojiya kuma soo islaamina iyagoo daayiciina ayay nabiga u yimaadeen sala allahu calayh wasalam oo hoogga qabaa'ilka qaarkood ay soo mareen oo qafaal iyo ihaano iyo dhibaato ay diinta ku soo galeen ayagu diinta kuma soo gelin wala nadaama wagayra nadaama kuwa qoomameeya oo shallaayo kayrkood xaal aad tihiin soo dhowaada adinkoon mustaqbalka dambena aadnaan shallaayaynin faqaaluu waxay yidhahdeen wafdigii yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow ina anagu laa nastadiicu ma awoodno an naatiyaka inaan kuu nimaadno ilaa fi shahri alxaraam bishii la xushmeeyey dhexdeeda maahane bilaha ashhurulxurumka ah bilaha un baan kuu imaan karnaa wa beynanaa dhexdeenna iyo wa beynaka dhexdaana haadaa kan ahde kaasoo alxayu ee qabiilkaasoo min kufaari mudara qolada mudar la yidhaha gaaladooda ka mid ah qoladaasina way noo dhexaysaaho kuma soo gaari karno oo qoladaa gaalada aha noo dhexaysa annaga iyo adiga fa murnaa na amar biamrin arrinna amarkaasoo faslin kala saara bayna alxaqi waalbaatil bimacnaa faslinta waa masdar bimacnaa ismi alfaacil biamrin amarkaasoo faslin ay faasilin arrin kala saarta noo sheeg xaqa iyo baadilka nukhbir bihi arrinkaas waxaan uga warramaynaa annaguna arrinkaad noo sheegto xaqa ah man duulaan uga warramaynaa duulkaasoo waraa'anaa gadaasheenna ah wa nadkhulu bihi waxaana ku gelaynaa arrinkaas aad noo sheegtay aljanna jannadaan ku gelaynaahay bal noo sheeg wasa'aluuhu nabiga waxay su-aaleen sala allahu calayh wasalam can ilashriba can xukmi alashriba cabitaanada xukunkeeday nabiga weydiiyeen sala allahu calayhi wasalam fa amarahum rasuulka alle sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wafdigii wuxuu amray biarbacin afar arrimood wanaahum canha arbacin afar arrimoodna waa ka reebay amarahum rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu amray biliimaani billahi waxdah munfaridan ilaahay keligii inay rumeeyaan uu amray qaala wuxuu rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam atadruuna ma ogtihiin ma aliimaanu billahi waxdah rumaynta ilaahay la rumeeyo keligiisa waxa ay tahay ma ogtihiin qaaluu waxay yidhaaheen allahu warasuuluhu aclam qaala markaasuu rasuulka alle sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi iimaankii uu fasiro shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah wa iqaamu asalaa wa itaa'u zakaa wa siyaamu ramadaan saasuu acmaashaasuu ku fasiray rasuulku sala allahu calayh wasalam waana meesha bukhaariba uu ka deliishanayo iimaanku inuu camal u baahan yahay iimaanka maxaa yeele nabigu sala allahu calayh wasalam wafdigii reer cabdulqays markuu iimaanka u sharxaayey oo iimaanka uu u fasiraayey acmaaluu ugu fasiray rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waxaa kaloo rasuulku sala allahu alayh wasalam iimaanka uu ku soo daray wa an tucduu inaad bixisaan min almaqnami khaniimada xaggeedana alkhumusa shan meelood meel inaad khaniimada ka bixisaanna iimaankiiu ku fasiray haddana rasuulku sala allahu alayh wasalam marka icdaa'u alkhumus inuu iimaanba uu ku tilmaamay rasuulku sala allahu alayh wasalam wa nahaahum rasuulku wuxuu ka reebay sala allahu alayh wasalam can arbacin afar arrimoodna wuu ka reebay can ilxantami uu ka reebay rasuulku sala allahu alayh wasalam aashuunkii biyaha ay ku kaydaysanayeen cabitaanka ay ku kaydaysanayeen ayuu ka reebay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi maxaa yeeley aashuunka waxaa weeye sida qaalibka ah shayga haddii lagu kaydeeyo yusricu ilayhi aliskaar waxaa u soo degdegaya inuu shaygu maandooriye noqdo waddubaa'i bocorkiina rasuulku in wax lagu kaydiyo oo cabitaanada bocorka lagu kaydiyo waa ka reebay rasuulku sala allahu alayh wasalam wanaqiiri saltimiraadkii isagana waa ka reebay rasuulku sala allahu alayh wasalam in wax lagu kaydiyo waa weelal dhammaantood markii wax lagu kaydiyo iskaarku uu degdegayo shayga cabitaanka ah oo lagu kaydiyo weelashaas oo isku beddelayaba maandooriye uu isku beddelayo laakiin xadiiskan kabacdii waa la nasakhay oo axaadiis fara badana lagu nasakhayo oo waxa weeye shayga waxaa la fiirinaa inuu cabitaanku muskir noqdo bis ayu shay oo wax lagu kaydaysto weel kasta hadduusan dahab iyo fida ahayn dahab iyo fidaba hadduusan ahayn waxba cabitaanka waa lagu shubin karaa cilladu kaliya waxay tahay iskaar in la iska ilaaliyo iskaarkaas weeye cillada xukunka iyo taxriimku uu la wareegsanayo waa iskaar ama markaa qoray ku kaydayso ama aashuun ku kaydayso haddiiba sharaabkuba maandooriye uu noqdo markaas bisuu xaaraam noqona can ilxantami waddubaa waannaqiir waalmusafati kii la laamiyeeyey oo laamiga la mariyey weelkii laamiga la mariyey ayuu rasuulku ka reebay sala allahu alayh wasalam wa rubamaa qaala inuu yidhina waa laga yaabaa rasuulku sala allahu alayh wasalam almuqayar midkii la laamiyeeyey waa bimacna waaxid musafat iyo muqayar
وقال وحي رسولك عليه صلى الله عليه وسلم احفظوهن أشياء ساندين شيئا حفظا وأخبروا بهن من وراءكم dadka idin ka dambeeyana uga warbixiya oo u faa'iideeya dadka aad ka soo tagteen oo guryaha iyo deegaanada aad uga soo tagteenna uga khabriyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam baraka calayhi rasuulka marka sallallahu alayhi wasallam hadda qoomkan wafdi Abdul Qays wuxuu u sheegay in afar arrimood oo amray afar arrimoodna uu ka reebay rasuulka sallallahu alayhi wasallam baraka calayhi marka haddana waxa leeyahay waxyaalaha ma'muuraadka ah afar way ka badan yihiinoo waaba shanba ma'muuraadka jawaabooyin kala duwan ay culimadu ku daaweeyaan ay ka bixiyaanoo hadda Qurdubi oo kale wuxuu leeyahay waxa meesha loo sheegay ulajeedada laga leeyahay waxa weeye waa iimaankii salaadii iyo zakadii waxa laga xisaabi hal xabo laga xisaabi maadaama inta badan ba aysan kala harin oo quraanka dhexdiisa lagu xiriiriyo salaadii zakada waxa laga xisaabi hal xabo oo kale ah ayaa laga xisaabi saasay marka ashyaadu waxay ku noqonayaan shanay ku noqonayaan oo muxadisiinta qaarkood saasay uga jawaabeen oo xaafidku jawaabaad fara badan ayuu sharxiisa uu ka bixiyay marka xadiiska ulajeedada hadda uu ka leeyahay imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala waxa weeye in khumuskaas bixintiisa rasuulku uu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam baraka calayhi inuu iimaanka khisaashiisaba uu ka mid yahay inuu ku tilmaamay rasuulku sallallahu alayhi wasallam baraka calayhi قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى ودخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته أي على نيته نفقة رجل على أهله يحتسبها صدقة وقال ولكن جهاد والنية باب هذا مثكاني باب ما الذي في باب كيسيو جاء يمد أن الأعمال أعماشه معتبرة بالنية waxa u baab yahay waxyaalaha axaadiista yimid oo tusinaya acmaasha mu'tabara wa manuudatun binniya acmaasha in laga fiirinayo oo lagu xiray niyada amalkaagu inuu maqbuul noqdo oo aakhiro uu ku anfaco iyo amalkaagu inuu marduud noqdo oo aakhiraba uu san ku anficin bal uu dhibaato ku geysto labaduba waxay kaaga xiran yihiin maqaasida iyo niyada aad ka leedahay ulajeedada amalka aad ka leedahay ay labaduba ay kaaga xiran yihiin amalka saalix oo inuu birri ku anfaco aakhiradaada iyo inuu dhibaataba ku soo jiido naar uu ku soo jiido wal ciyaadu billah waxay mar walba ku xiran tahay bixasab al maqasid oo bixasab an nawaaya nawaayaadka iyo ulajeedooyinka adigu aad ka leedahay amalka ay ku xiran tahay marka axaadiistii tusinaysay baabkaas ayaa sheekhu noo sheegi doonaa rahimahullahu ta'ala anna al a'mala bin niyyati iyo wal hisba acmaashu inay tahay niyo iyo hisba xisbada ulajeedada laga leeyahay waa bimacna al-ikhlaas ay an ta'mala ihtisaaban wa inaad u amal fasho ajir xisaabsi ay al-ikhlaas lillah cibaadada inaadan ulajeedo kale iyo dan kale aadan ka lahayn oo inaad makhluuqaadka dhexdooda waji uga samaysato ama ay kugu amaanaan in ulajeedadaadu aysan ahayn laakiin xisba ay tahay ikhlaas lillah amalku inuu yahay walikulli imri'in ma nawa qof walbana wuxuu leeyahay wixii uu niyeysto waa qayb xadiiska nabiga ka mid ah sallallahu alayhi wasallam baraka calayhi qof walba wuxuu leeyahay wuxuu niyeysto ayuu iska leeyahay walidaalika waxaa ku yimid xadiis imaam axmed oo musnadkiisa uu ku warinayay man ghaza yanwi ciqaalan falahu ma nawa qofkii duulaan u baxa waa duulaan yani al-ghazw fi sabilillah al-jihad fi sabilillah qofka u baxa oo amalka ugu dhibka badan ah maxaa yeelay waa mukhaadara bin nufus nufuustii oo khatar loo bandhigayo oo khatar la gelinayo naftiyo bedel lahayn marka wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam man ghaza qofkii duulaan u baxa yanwi ciqaalan asagoo duulaankaas u niyeestay inuu dabar rati ka soo helo ratiga yani xariga lagu dafro bis uu rabaa inuu ka soo helo niyo kale janno aad ku gaartid iyo maqaasid waaweyn iyo ilaahay ridihiisa aad ku xaqiijisid iyo diinta aad ugu gargaartid iyo waxaas maqaasidaas oo dhan ulama jeedo yanwi ciqaalan wuxuu niyeysan yahay xarigaas dabarka ratiga inuu ka soo helo ayuu niyeysan yahay falahu ma nawaa uu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam dabarkaas uu leeyahay bis xarigaas xunka ah oo dulliga ah buu leeyahay marka xataasi waxay tusinayaan mar walbaba ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka inuu ku qiimeeyo bixasab an-nawaaya wal maqasid
niyooyinka iyo ulajeedada qofka camalku uu ka leeyahay ayuu ilaahay ku qiimeeyaa maxaa la xadiiska imaam axmed uu musnadkiisa ku wariyey ayaa wuxuu tilmaamay qof ruuxdiisii aan badiil lahayn naftiisii la dilay oo gaaladu ay dileen inuu jiro oo haddana hadduu niyeysto dabar aad soo heshid oo ratigaa waxa lagu dabrayo aad soo heshid aakhiro wax camala inuusan ka horraynin dabarkaas bis adduunyada uu leeyahay acmaasha kalena waa la mid oo marka mar walbaba laazim waxaa qofku inuu tasxiixu almaqaasid waannawaaya uu ku dadaalo oo maqaasidiisa iyo niyadiisa mar walbaba uu kontarool joogto ah iyo muraaqabo joogto ah waa in mar walbaba camalka lagu hayo fadakhala fiihi fi lmadkuur waxa la soo sheegay waxa soo galay almadkuur alladii yaxtaaj ila niya loola jeedaa kan la soo sheego niyada u baahan waxaa soo gelaya aliimaan walwudu' wasalaatu wazakaatu walxaj wasawm walaxkaam intaasoo dhan niyay u baahan yihiin waxyaalaha waxa weeye niyooyinka u baahan waa iimaankii niya u baahan yahay wasaqaadku niya u baahan yahay laa yasixu biduuni niya salaaddii niya u baahan tahay oo niyalaan ma ansaxayso zakadii niya u baahan tahay niyalaan ma ansaxayso xajkii niya u baahan yahay niyalaan ma ansaxayso soomkii sidoo kale axkaamta oo dhan waa sidaas axkaamta wuxuu la jeedaa yacni masalan beecii oo kale taraadiyuu ku xihan yahay laysaga raali noqdo nikaaxii jaraaxaadkii waxyaalahaas oo dhan niyooyinay ku xihan yihiin ilaa qofkan marka la dilaayo qofka niyadiisa ee qasadkiisa iyo maqaasidda uu ka leeyahay la fiirinayo inuu camdi u dilay inuu shifulcamdi u dilay inuu khada u dilay ulajeedadiisa la qiimeynaya iyada nafteeda marka axkaam fara badan inta badanba diintu waxay ku xihan tahay almaqaasid waannawaaya ulajeedada iyo qofka uu ka leeyahay waxaan uu samaynaayo ayuu kale walidaalika bukhaari raximah llahu tacala acmaashii o dhan uu soo geliyo wuxuu yidhi fadakhala fiihi aliimaanu walwudu' wasalaatu wazakaatu walxaju wasawmu walaxkaam marka bacdu alacmaal khilaaf waa jira acmaasha qaarkoodna waaba ijmaacba inay niyo u baahan yihiin qaarna khilaaf waa jira matalan weesaqaadka oo kale xanafiyadu waxay leeyihiin waa wasaa'il cibaado rasmiya ma ahane waa wasiilatun ila alcibaada cibaada lagu gaariyo salaadiyo cibaado ah oo madax bannaan ayaa lagu gaari maadaama wasiilo uu iska yahay laa yaxtaaj ilaa niya weesaqaadku niyo uma baahnay xanafiyadu leeyihiin laakiin madaahibta kale iyagu waxay leeyihiin walidaalika bukhaari madhabkiisuna waaba yahayo inuu weesaqaadku niyo u baahan yahay waaba sheegayo fadakhala fiihi aliimaan walwudu' waa khilaafan lilxanafiya xanafiyada iyagu dhahayo maadaama weesaqaadku wasiilo uu iska yahay oo hadda cibaada lagu gaari maahan hadda cibaado rasmiya uusan ahayn saas awgeed maba u baahnay leeyihiin xanafiyada wax niyo ah wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul waxaa tidhaha nabiy llaahi moxamedo sala allahu calayhi wasalam kullun qof walba shaksi walba yacmalu wuu camal falaa calaa shaakilatihi ay calaa niyatihi qof walba niyadiisa ayuu ku camal falaa qof walba wuxuu niyeystaa camalkiisana lagu qiimayn camalkiisa waxaa lagu qiimayn ulajeedadiisa iyo niyadiisa marka imaamu albukhaari raximah llahu tacaala lafdigan calaa shaakilatihi wuxuu ku fasiray calaa niyatihi waa calaa tafsiiri alxasan albasriy waa tafsiirkii sheekha wuxuu ictimaaday xasanulbasriyaa sidaas ku fasiray lafdigan calaa shaakilatihi laakiin mujaahid ibnu jabrin oo imaamu lmufasiriin ah qul kullun yacmalu calaa shaakilatihi isagu wuxuu ku fasiray ay calaa madhabihi ay calaa madhabihi uu ku fasiray kullun yacmalu calaa shaakilatihi ay calaa madhabihi nafaqatu rajuli calaa ahlihi yaxtasibuhaa sadaqa waa qidcatun min alxadiis qayb xadiis ka mida weeyo uu sheekhu soo gaabiyey nafaqatu rajuli ninka nafaqadiisii calaa ahlihi ahaladiisa uu nafaqeeyo yaxtasibuhaa xaal nafaqada uu ku ajir xisaabsanaayo oo ilaahay dartiis iyo ajir uu ula jeedo nafaqadaas xataa carruurtaada iyo ahalkaaga iyo awlaaddaada iyo xaaskaaga aad siinayso waa sadaqa uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam oo waxyaalaha xataa sida dabiiciga dadku aysan niyo la imaanin iyaga naftooda haddaad niyo wanaagsan biilka iyo nafaqada aad ku bixiso waa sadaqa uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam ahalkaaga aad biilayso awlaadda aad biilayso haddaad niyo wanaagsan ixtisaab haddaad ula jeedo oo ajir inaad uga hesho haddaad ula jeedo waa sadaquu ku tilmaamay rasuulku sala allahu alayh wasalam wa qaala wuxuu kaluu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam walaakin jihaadun wa niya waa xadiiskii dheeraayo laa hijrata bacda alfatxi fatxi ka bacdi hijra ma jirto maka haddii la furtay ka bacdi hijro ma jirto oo hijra min maka ila almadiinati almunawara waa go'day hijradaas way go'day marba haddii maaragtaa makaba la furtay walaakin jihaadunaa baaqiya iyo waniya laakiin waxa baaqiya waxa weeye jihaada baaqiya jihaadu nafsi walmaal iyo jihaadu lkufaar kufaarta lala jihaado nafta lala jihaado iyo niyada baaqi ah oo shay walba acmaasha inay u baahan yihiin niyo ay u baahan yihiin
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة واقع نبي هذا كورن وسوق هذا قال أخبرنا مالك بن أنس الأسبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد الأنساري ولجد قاضي المدينة وقال لي المدينة يحيى بن سعيد كما شيخ كلاو وقدان كما يحيى بن سعيد القدان كما عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي علقمة بن وقاص الليثي اللي لجد محل عمر وحكى قاضي ورنا نسوق هذا عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه قال إنه رسولك عليه صلى الله عليه وسلم الأعمال معتبرة بالنية معتبرة ومنودة بالنية أعماشه وحلقة في ريال لقونا حري نية لقو حري أعماشه ولكل امرئ ما نوى أفضل بنوح اسكاليه يوحو نيسته فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه حديثك مكرر ونويه ونوصل على لابتي هران سوق قادنايو كتابك باللوغيسيا مكسو قادناي بدء الوحي كتاب بدء الوحي أيام كسو قاد ومركي لباد حديثك هذا عن مرينو مر سدحادي مر أفرادي مر شنادنا ونوصل على لابد دونا حديثكو مركا هذا وحو كسو لابد دونا باب ترك الحيل وهذا الشيخ كسو عيدين دونا اسغو ulejeedo kale iyo maqaasid kale sheekhu ka daliishanay kitaabul cidqi وهذا markale oo xadiisku noogu soo laaban doona kitaabul nikah وهذا markale noogu soo laaban doona kitaabul hijrana waa noogu soo laaban doona hadana marka xadiis mukarrarka ah inta badan soo laabata ayuu xadiiskani kamid yahay maxaa yeelay maadaama xikam iyo culum fara badan xadiiska laga daliishan karo oo dhowr meelood iyo ictibaaraad kala duwan ayaa xadiiska laga daliishan karaa walidaalika sheekhu wuxuu uga faa'iideystay abwaab kala gedisan oo shaqada aan isku lahayn oo xadiiska u kala daliishaday maxaa yeelay baab walba xikamu ula jeedaa meel uu daliil u yahay baab walba marka waxa u soo daliishaday kitaab badil wahyi oo ula jeedada uu kala ha sheekhu ay tahay in kitaabka taaliifkiisa uu kala yahay niyo wanaagsan uu kala yahay haddana meeshan haddana ku soo celiyay kitaabul iimaan ayuu ku soo celiyay ayagoo daliilka uu ka wato sheekhu ay tahay acmaashu inay niyo u baahan tahay haddana wuxuu ku soo celi doonaa baabul hijra kitaabul nikah kitaab tark al-hiyal wuxuu ku soo celi doonaa haddana baabul cidqi وهذا مركز كو إيمان دونا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن منهال البصري من حجاج بن منهال وعلماء البصريين تحفظوا كمدها بخاري مسلم يا أبو داود أيا وحكوريين قال وحوير حجاج حدثنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث قال شعبة وحوير أخبرني عدي بن ثابت الكوفي عدي بن ثابت الكوفي وإمام حجة وأنا إمام مسجد كوفة مساجد كوفة وينا شيخ إمامك كأهنجر وعدي بن ثابت الكوفي قال وحوير عدي سمعت عبد الله بن يزيد وصحابي عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود ومن باب رواية الصحابي عن الصحابي لبا الصحابي وحكى لقاضي سو عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال وحي رسولك قال إذا وقتك أنفق الرجل على أهله ننكو هدون نفقيو أهل ديسا يحتسبها حال نفقداس وأجر كأجر حساب سنايو أو احتساب ولجده أجر وكر هادينايو فهو أي ذلك الإنفاق صدقه له حال رجل كوسقنا الإنفاق صدقه وكون نغنبا مركا أعماشي عادي هايو قفكو إسلها مركا يعني إنفاق عادي وسنوني سنة لكن ولدني يستو احتساب طلبا للثواب إنه إلهي سبحانه وتعالى أبا المرين فقد أقدونا يهدو أني يستو صدقي النقاني رسول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه marka waa xadiis weyn oo mudan in la tadbiiqiyo lagana faa'iideysto waxa yeelay dadka maaragtaahay biilka bixinaya ama haweenka maaragtaahay biilka siinaya uma badna inay ihtisaab u niyeestaan illa man rahimahullah dad gaar ah waxa loo niyeestaa qayladeeda isaga reeb in loo niyeesto lama rabo waxa way lacagtina way ka baxday wax ajiraya wax faa'iidana kuma aadan gaarin walidaalika mar walbaba shay walba ficil walba sameynayso waa in niyada aan soo xaadirino laakiin in loo fiiriyo oo qofkana waa kugu qayliyo qayladeeda ku aamusi kaliya in loo niyeysana ujeedadu ay tahay ihtisaab in loo niyeysto si ilaahay subhanahu wa ta'ala ajir uu nooga siiyo qala al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala حدثنا الحكم بن نافع السابق في الاسناد هرم سو قادن جن شيخا قال اخبرنا شعيب اسناد كسو سدن امتحان دور غلان سو مرني عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عامر كوا تابع سو مرني سغنا عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره
سعد بن أبي وقاص أخبره عامر ورمي أن رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسولك الله إنك أديك لن تنفق نفقة نفقة ما بحسد نفقة تبتغي بها وجه الله إلهي وجهك سأكرها سنيسد إلا هداد النفقة وجهك إلهي كرها سنيسد أجرت عليها ولقى أجر سياه رسولك صلى الله عليه وسلم حتى ما تجعل في فم امرأتك islaanta afkeeda afkaas dhexdiisa xataa waxa aad yeelaysid oo gelinaysid kaas way haddaad u niyeysato ilaahay inaad ajir uga gaarto waa lagaa siin marka camal walba inuu ku xiran yahay ilaahayna ku qiimeeyo maqaasida iyo nawaayaadka oo ilaahay ku qiimeeyo subxaanahu wa tacaala qaala imaamu albukhaari raximahu allahu tacaala qaala watamhiiluhu biluqmati mubaalaqatun fi taxqiiqi hadihi alqaacida hadda rasuulka sala allahu alayh wasalama luqmadan uu ku misaaliyey waa qaacidadana la xaqiijin liannahu idaa habata alajru fii luqmatin waaxidatin hal luqmo lizawjatin oo gayri mudara zawjo aan sidaasba ugu baahnayn oo luqmadii afka loo gelinayo haddii ajar laga helay fama dannu biman adcama luqaman limuxtaaj maxaad u malaynaya luqmooyin raashin fara badan qof u baahan qofkii siiyey maxaad u malayn ow camila min aطaacaati maa mashaqatuhu fawqa mashaqati ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى أما محاضر ملاينا عبادة وين وقفكي السماية اللقمة أصبح كفر بدن كما شغب بدن قفكي السماية محاضر ملاينا باب قول النبي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي هذا ملكن باب قول النبي نبي قول كيس بابها صلى الله عليه وسلم ويري الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله باب قول النبي هذا مثل باب قول النبي نبي قول كيس بابه صلى الله وسلم وبارك عليه ويري الدين كو النصيحة النصيحة ويدينت ومن باب المبالغة والوحي الإرادة وحلقة دقي فكأن النصيحة تجمع جميع الدين نصيحة أيضا الدين تردم بكلية كل منيس أي اللغة مبالغة دي وحي لم يتهي الحج عرفة حج ردم وحكونا ماضي عرفة تاسي لم يتهي الدين كو النصيح رسولك صلى الله عليه وسلم الدين كدني والنصيح يا الله نصيحين لله إله الله نصيحين والنصيحة إله الله نصيحين هي ولجدد لقليه وحوي وإله أوامرتي سين لقاته نواهدي سنة لقد جوكسدو وحي إله أكار يبا محرمات كآه إن لقد جوكسدو إله نبار الله نقضى سبحانه وتعالى ولرسوله إله رسولك صلى الله نصيحيه صلى الله وسلم وبارك عليه ورسولك صلى الله عليه وسلم وحلقوا نصيحين هي وحوي in sunnadiisa la barto ee axaadiistiisa la barto la faafiyo awaamirtiisana la qaato waxa uu reebana laga haro baarina loo noqdo rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayhi walia'immati lmuslimiina muslimiinta a'immadooda iyo hogaamiyaasha dadka muslimiintana loo naseexeeyo oo hogaamiyaasha muslimiinta waxaa loogu naseexeyn iyagana in khayrka loo sheego waxyaalaha xumaataday samaynayaan laga reebo markay intaas ay qaataanna iyagana la adeeco a'immatu lmuslimiin intaa markay qaataan iyagana la adeeco oo laga dambeeyo oo khuruuj aan lagu samayn oo lagu soo bixin a'immatul muslimiina loola jeeda wa caamati lmuslimiin muslimiinta caamadoodana loo naseexeeyo muslimiinta caamadoodana waxaa loo naseexeyn iyagana in wax la baro qofka jaahilka la baraarujiyo oo cilmiga la baro oo si wanaagsan diinta loogu naseexeeyo wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa woy idaa waktigii nasaxuu ay naseexeeyaan dadka maaragtaay sadaqada bixinaya korkooda jid ma ahaanin idaa nasaxuu hadday naseexeeyaan lilaahi wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa hadday u naseexeeyaan haddii ilaahay rasuulkiisa waxaa loogu naseexeynaya waa midda hadda xadiiska aan kusoo fasirno awaamirta ilaahay oo la qaato nawaahida ilaahina laga joogsado ilaahay baari loo noqdo rasuulkana sala allahu alayh wasalam awaamirtiisa la qaato nawaahidiisa laga joogsado baarilana loo noqdo rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayh qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacaala xadahanaa musadad ibnu musarhad kii weyaan hore aan usoo qaadan jirnay albasri qaala wuxuu yidhi musadad xadahanaa yaxya can ismaaciil mar haddii musadad uu yidhaha yaxyaha muxuu ula jeedaa markaas yaxya bnu saciid alqaطaan ma daliilu calaa dalika min almanduumati alatii darastaha wاlآakharu alqaطaanu canhu xadadu ibn almuhanى wakada almusadadu ibn almuhanى yani ibn almuhanى maxamed almuhanى ula jeeda maxamed almuhanى iyo musadad iyo marba hadday mashaayikhdaasi yidhaahaan xadahanaa yaxya waxay ula jeedaan yaxya bnu saciid alqaطaan horena ugu taarikhinayo min a'immati aljarxi watacdiil uu ka mid ahaa wa kaana yakhtimu alqur'aana kula yowm maalin kastuu qur'aanka khatimi jiray wayadcuu lialfi insaan kun qofna waa u ducayn jiray yaxya bnu saciid alqaطaan can ismaaciil qaala xadathanii qays bnu abi xaazim
إسماعيل مر هدو قيس بن أبي حازم كقاضو محل لجدا إسماعيل ابن من وين أيوه إسماعيل منظومتنا ولا صبرتي هل قفنا ما حفظين مياه ونفرت انتنا هل قفنا نفران كرم بجرو منظومة صح حفظي وإسماعيل كان إسماعيل ابن أبي خالد البجلي منظومة سيدة وقرأ عن قيس إسماعيل ذاك ابن أبي خالد الكوفي فز بالعربي سابق هو أبترنا عن قيس إسماعيل ذاك ابن أبي خالد الكوفي فز بالعربي كان سوق هذا النيو ومركو حلو لجد إسماعيل بن أبي خالد الكوفي البجلي قال وحير شيخ إسماعيل حدثني قيس بن أبي حازم قيس بن أبي حازم خواص لها وأنا تابعي خواص لها تابعين محاكم لها خواص دي روى عن العشرة المبشرين بالجنة عشرة المبشرين بالجنة شيخها كل قوت حبو كبرتي قيس بن إسماعيل حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله الأنصاري قال صحابي وحيري بايعت رسول الله رسولك إلهي أن وعد لقلي صلى الله وسلم وبارك عليه وها رسولك وعد كلقلي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة صلاة وجد الزكاة بحنت هذا إيه والنصح لكل مسلم كستان نصيحين تسوقفك أبو مسلمة إن وحوش يجو وخير كأنوش يجو وضدك مسلمين كانوا نصيحيه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان وحول جد شيخ محمد بن الفضل البصري سوى 6 وحوقا قاتيبة بخاري سيدا نركينه لكن إمام مسلم صحيح سوى كسو قادني شيخا لكن وحو أهانجري إمام مسلم شيخه بواسد وحوقا ورنجري وحكا له واسد وحوقا وريا أفرت سننتها شيوخ الإسكالي وابو داود كي ترمذي كي نسائي ابن ماجه أيقنا شيخا واسد وحوقا وريا لكن بخاري 6 وحوقا قاده حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل البصري قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري تكرر كثيرا ومرارا في صحيح مسلم عن زياد بن علاقة الكوفي وحا أمان أغفلنا الليلة أنه يروي عنه أعمش وحكوري وشيخ الجلالدي سيهبدي سلوغا أي وحكا قاضي زياد بن علاقة قال وحوري زياد بن علاقة سمعت جرير بن عبد الله يقول جرير بن عبد الله صحابي قاسن مال يقول حاله له جرير بن عبد الله يوم مالين isagoo dhahaya مات المغيرة بن شعبة صحابيgaas maalintii uu dhintay uu khudba la istaagay qaama waa istaagay جرير بن عبد الله فحمد الله واثنى عليه ilaahay maaragtay mahdiyay واثنى عليه ilaahayna wuu amaanay waa maalintii wuxuu khudba la istaagay saxaabigan uu dhintay مغيرة بن شعبة waa sanadkii kontonaad ee taariikhda hijriga مغيرة بن شعبة markuu dhimanayna wuxuu madax ka ahaa dhulkan Kuufa fi khilaafati Muawiya khilaafadii Muawiya ibn Abi Sufyaan markuu ummadda hogaaminayay markaasuu Kuufa uu madax ka ahaa markii uu dhintay Mughirah ibn Shu'bah hadda saxaabi jaliil oo weyn oo caadi thiqana uu ahaa waxaana lagu tilmaamaa kana kathiira zawaajkiisa iyo guurkiisa badnaa Imaam Nawawi rahimahullahu ta'ala sharh sahih Muslim wuxuu ku sheegay ilaa 200 culimada qaar inay sheegaan haween inuu guursaday qaarkoodna 300 ba inay sheegaan culimada qaarkood inuu guursaday waxyaalaha ajaa'ibta ah laga sheegay waxa kamid ah Mughirah ibn Shu'bah hadda ka hor dagaal ku dhaawacmay jihaad marka haweenay dhakhtaradaha tuleysay caloosha ka dilaacday haweenay dhakhtaradaha tuleysay tulinka intay watay wuxuu yiri alaki zawjun wana dhaawacan yahay taas la yaab nin maleedahay ku yiri nin maleedahay saas saxaabiga ahaan jiray Mughirah ibn Shu'bah aadi thaqana waa يقول يوم مات المغيرة بن شعبة maalintii uu dhintay Mughirah ibn Shu'bah waa sanadka 50 min al-hijra oo Kuufa madax ka ahaayay qaama waa istaagay Jariir ibn Abdullah فحمد الله وأثنى عليه وقال مركاسه وحيري جرير بن عبد الله عليكم لازمة باتقاء الله إلهي عبسديس وحده منفردا حاله إلهي كلي أنك عبسدا لا شريك له حالوسا إلهي شريك وسنسقنان وقار كان لازمة دقنا شاه إسدجية ووحا هذا وكبورنا جرير بن عبد الله خطبتي سيكو وحكوب الله إلهي لغا عبسدا لسند دجيه إن إلهي لغا عبسدا lays dejiyo maxaa yeelay fawda inay iimaanayso ayaa insaanka dabeecadiisa markii qof madaxu markuu dhinto magaalada in fawda ay ka dhacayso oo dadku maaragtay nidaamkii inuu meeshaba lagu kala tagay qofku uu aaminayo oo qofku rabo uu dulminayo waa dabeecada bini aadamka qofka madaxda markuu dhinto marka saas waana daruuri qof madaxu hadduu dhinto in qof weyn oo haybad mujtamaca iyo bulshada ku dhexle inuu khudba u jeediyo oo dadka uu kula taliyo inay ilaahay ka baqaan kala dambeeyaan nidaamka ilaaliyaan
iyaga dhexdoodana aysan isdulminin laysna dejiyo waa nidaamka marka ay noo jidaynayaan asxaabta nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh yowma maata almugiiratu bnu shucba qaama faxamid allah waatnaa calayhi waqaala calaykum biitiqaa'i illahi waxdahu laa shariika lah walwaqaari laazimay wasakiina waqaarka waxaa lagu fasiraa sakiina nafteeda deganaanshaha marka cadafku wuxuu noo noqonaa min baabi cadfi tafsiirba haddii waqaarka deganaansha aan ku fasirno cadfu tafsiiruu noo noqon oo sakiinadaaba fasiraysa xataa yaatiyakum amiirun ilaa amiir kale uu idinkaga imanayo isdejiya hadda ilaa amiir kale uu idinkaga imaanayo mafhuumulmukhaalafadana waa mafhuumu mukhaalafa laa yucmalu biha mafhuumulmukhaalafa aan lagu camal falaynin wey maxaa yeeley xataa yaatiyakum amiir ilaa amiir uu idinkaga imaanayo isdejiya maxaa laga fahmay mafhuumulmukhaalafa amiir markuu yimaado heesdejinina ma laga fahmaayo maxaa yeele mafhuumulmukhaalafaha marka lagu camal falaayo shuruuday leedahay shuruuddeeda waxaa ka mid ah in mafhuumulmuwaafaqo kale uusan caaridin hadda mar walbaba deganaashada sharcigu wuxuuna amray ama amiir ha yimaado ama amiir yuusan imaanin in mar walbaba la deganaado oo nusuusta kale ayaa caaridaysa markaa mafhuumulmukhaalafada markaas lagu camal fali maayo mafhuumulmukhaalafada xataa yaatiyakum amiir fa inamaa in kale maahna yaatiyakum amiirku al'aana haddeeruba idiin imaana oo amiir waa lasoo magacaabi doonaaba uma qaala markaasuu wuxuu yidhi saxaabigi jariir bin cabdillah wuxuu yidhi istacfuu liamiirikum amiirkiina u cafin dalba oo ilaahay inuu cafiyo amiirkiina u duceeya in ilaahay cafiyo fa inahu shaniga kaana wuxuu ahaan jiray amiirkiinu yuxibu alcafwa amiirkiinu cafiguu jeclaan jiray yani alcafwu can innaas dadku isaga cafi jiray maadaama dadka uu amiirkiinu jeclaa inuu qofkii dulmiyaba uu iska cafiyo taasi waxaan rajaynaynaa ilaahay asaguna inuu cafin doono maxaa yeele aljazaa min jinsi alcamal qofka hadduu ummadda iska cafiyo dulqaad badan yahay ilahina waa cafinaya subxaanahu wa tacaala fa inahu kaana wuxuu ahaa yuxibu inuu jecel yahay alcafwa can innaas uma qaala markaasu wuxuu yidhi saxaabigu ilo khudbadii wataa markii amiirku dhintay amaa bacdu intaa ka bacdi fa innii anigu aataytu nabiya nabigaan u imid sala allahu alayh wasalam qultu waxaa yidhi ubaayicuka wacad waxaan kugula geli cala alislaam fasharadda calaya nabigu waxa uu igu shardiyey sala allahu alayh wasalam wannusxi likulli muslim haddana islaamnimada kale maahane wannusxi likulli muslimna wacdan kugula geli muslim kasta inaad u naseexayso fabaayactu rasuulkan wacad kula galay sala allahu alayh wasalam calaa hada almadkuur warabbi hada almasjidi masaajidkan rabbigiisiyaan ku dhaartaahe oo masaajidka markaa meesha masaajidka uu ka khudbaynayo masjidka kuufa wey masaajidka kuufa uu khudbo ka jeedinayo marka jariirku markii amiirkaas uu dhintay warabbi hada almasjid aan ku dhaartaahe innii anugu la naasixun lakum waa idin naseexayna saasuu yidhi ilaahan ku dhaartaa hadalkan dhibaataha u qaadanina naseexaan idinla jeedaa uu yidhi saxaabigu uma istakfara ilaahu dembi dhaaf ka dalbaday saxaabigii wanazala mimbarkiina waa ka soo degey khudbadaas markuu akhriyey istikfaaruu ku soo khatimay wanazala waana soo degey xadiiskaana ugu dambeeyey kitaabuliimaan halkaasuu ku soo xiray imaamu albukhaari raximah allahu tacaala waxyaalihii uu doonayo sheekhu inuu dadka ahlulbidaca qaarna uu axaadiis uu ku radiyo qaarna uu doonayaba waxyaalo iimaanka kobcinaya inuu noo sheego sheekhu raximah allahu tacaala halkaasuu ku khatimay kitaabuliimaan lawaa'ix iyo ladaa'if kalena waa ula jeedaa sheekha xadiiskan uu ku khatimayo xadiiskii nasiixada tusinayey ayuu sheekhu ku khatimay kitaabuliimaan iyadoo ulajeeddadu ay tahaba kitaabkan sheekhu inuu u alifay liajli nasiixa lilmuslimiin oo marka ladiifo qarsoonna waa ugu jirtaa sheekha raximah allahu tacaala meesho waxa kitaabuliimaan uu ugu khatimay nasiixada xadiiskan tusinaya waxaa weeye inuu kitaabka u alifay annasiixa lijamiici almuslimiin ulajeeddadiisa ay tahay muslimiinta inuu u naseexayo sheekhu raximah allahu tacaala hadalkan kaleo weliba uu u doortay inuu ku soo khatimo haddana xadiiskan sheekha warabbi hada almasjid innii la naasixun lakum uma istakfara wanazala uma istakfara wanazala maxay tusinay khudbadii jariir inay dhammaatay hadna muxuu tusinaa kitaabuliimaan inuu asna dhameeyey kitaabuliimaan inuu dhameeyey ladiifadaasna waa ula jeedaa sheekhu raximah allahu tacaala kitaabuliimaanna haddii axaadiis fara badan uu soo khulaaseeyey sheekhu raximah allahu tacala xaafid ibn xajar alcasqalaani wuxuu yidhi khaatima ishtamala kitaabuliimaan wuxuu kulmiyey iyo muqadamatu kitaabuliimaan muqadamadiisii min bad'i lwaxyi min alaxaadiis almarfuuca calaa axad wa hamaaniina xadiisan bilmukarar 81 xadiisuu kulmiyey haddii mukararka lagu daro minhaa fii bad'i lwaxyi 15 xadiisan badilwaxyan kusoo qaadanay 15 xadiis wa fi liimaanna 66 almukarar minha 33 لح وحنا مكرر 33 حديث منها في المتابعات بصيغة المتابعة أو التعليق 22 تعليق كتمد أما صيغة متابعة كتمد واللواتين يلبو في بدء الوحي 8 وجرته
وهي تعليق ومتابعة. وفي الإيمان 14 وفي الموصول المكررنا 86 حديثه. ومن التعليق الذي لم يوصل وشيخ أسن بحريرين في مكان آخر 3 وجد حديث معلق وملنا أسن شيخ كحريرين إسناد كيسة. وبقية ذلك وهي 48 حديثا موصولة بغير التكرير. وقد وافقه مسلم ووافق الشيخ على تخريج حديث تخريج كذا إلا 7 تضوكم موافقين. وهي الشعبية وإسناد كالشعبي عن عبد الله بن عمرو في المسلم والمهاجر. والأعرج عن أبي هريرة في حب الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن أبي سعسعة عن أبي سعيد في الفرار من الفتن. وأنس عن عبادة في ليلة القدر. وسعيد عن أبي هريرة في الدين يسر. والأحنف عن أبي بكرة في القاتل والمقتول. وهشام عن أبيه عن عائشة في أنا أعلمكم بالله. وجميع ما فيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين 13 أثرا. كتاب الإمام حكمي 16 أثر ومركا موقوفات أما التابعين كن نقضى موقوف أما الصحابة موقوفة كن نقضى أثر معلقة غير أثر ابن الناظور ماهني أثر ابن الناظور حديث هرقل فهو موصول ويكاسي. وكذا خطبة جرير نوالمد التي ختم بها كتاب الإيمان أيضا موصول أيضا معلق معها والله أعلم. كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم. هذا متكن باب فضل العلم وفضل علمك أي أبابيها. شيخ مركو كتاب الإيمان أسود دمية وحكو حجي شيخ رحمه الله تعالى علمك فضلك أوليه محايلة هاو حكو سنة مناسبان لبدا باب أسود حجي الإيمان يحتاج إلى العلم. إيمانك إيه خصال الإيمان يعني استقع عمل فالماءها خساشة أن صور شاقني إيه استفادك تلمامها أن صور شاقني استقع عمل فالماءها هني إنه يباهيهين علم يأقون وواحد يعكر توحياله إلى سلاده إلهي وقود واو هدنا إلهي بكاف وقينا إنه يهينه علم آدم كسميني علم آدم كسميني جيران مركينه كتاب الإيمان وباهيه عبادة ونبا علم يباهيهين. وقول الله إلهي قول كيسي ومركا قول ذا لقودو عطفا على باب كعفين باب فضل العلم إيه وقول الله عز وجل يرفع الله إلهي وحكر يلا الذين كوي آمنوا رميي منكم أدينك حال إذن كمدهين والذين كوين إلهي وكر يلا أوتوا العلم علمي قلسيي درجوين فربضان إلهي كر يلا oo dadka muuminiinta ah oo ahlul cilmiga aan ahayn dadka ahlul cilmiga ah oo cilmiga iimaan kulmiyay ayaa ilaahay darajooyin fara badan ka sara mariya wallahu ilaahina bima alladhi ta'maluna asmaynaysan khabirun alla xog ogaal ku ah wa qawluhu azza wa jalla ilaahay qawlkiisi wa qul waxa tiraha nabiyullah muhammad sallallahu alayhi wasallam rabbi ya rabbi gaydiyo zidni ilman ilaahu ilmi ziyada labadan aayadood sheekhu u soo daliishaday fadiilatul ilm وعلمك فضلك إليه لبضن آيضا ستة وصبا أتسنها فضيلة علمك وددك أهل العلمك إن إلهي سبحانه وتعالى درجوين فربضا إلهي أكري لي آيضا لبضن وحيث تسنه وحن نبي الله أمريبا صلى الله وسلم وبارك عليه إنه ربي ويديسته إنه أزياديه وحبا كجرة بعلمك علمك أسا كجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. هذا متكني باب من قف أي بابيه قف كاسو سئل علما علم لويديي والحال علم لويديي هو قفكنا مشتغل في حديثه شيكديسي وكو مشغول سنيهي او فاتم الحديث حديثكي دمايستري ثم مركو حديثكي دمايستري كبعدي اجاب السائل سائلكي مركز كبعدي وجواب عليي وبابيه. شيخ رحمه الله تعالى وحو وسو هرمري مركي فضيله علمي او لبا ايادود او شيخ وسو دليشدي كبعدي وحسور مريشاخة أبواب تصنايا آداب الطالب والعالم آدابك قفك متعلمك قفك عالمك آدابك اللغة بهاي هاي وشيخ بابك محوقة هذا لي قفك علم اللويديي أسقوا مشغول نحو سمينا فأتم الحديث كده ما يسترد يعني أولا جدد وحوه قفك هداد بعضك الطالب تهي أما السائل تهي قفك عالمك وشيخ أسقوا ورك لكم مشغول سن هداد أتمادي آدابته وحوي إنك كجابسته وتكامسته وده سؤال ويدين محيا له حق حق نمبضن قفكن وكم مشغول سنة قفكن وكم مشغول سنة هاي الحق لمن سبق قفكن وكاسه الرجال قفكن حق نمبضن قفكن مركو كفارق نقضاء سواء مشغول سنين مركا كبعدي ويدي سقفك عالم كاه وهكذا الشيخ بابك وكنت سالي عالم كنفتيس قريب كمدا آدابتيس وعالم كنفتيس آدابتيس وحكمدا haddii asagoo qolo ku mashquulsan sheekadoodii iyo cilmigoodii iyo inuu maaragtaahay diinta wax ka fahamsiiyo qof kaloo saa'ila uu ka dul yimaado aadaabta caalimta waxaa ka mid a inuu qolada u dhammaystiro asna oo qolada uusan hadalka ka jarin qolada hadalka inuusan ku jarin oo asaguna uu ku camal falo
الحق لمن سبق ثم أجاب السائل ترتيب كاس أكوضه تاسنا وحات السنة هي قابك استعمالي رسولك صلى الله وسلم وبارك عليه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن السنان البصري محمد بن السنان البصري بخاري النسائي ابن ماجه ما يوحوي وبخاري أبو داود كليه بخاري يا أبو داود الله بذا كليه وحكوريي محمد بن سنان البصري قال وحر محمد بن سنان البصري حدثنا فليح وفليح بن سليمان المدني وحنا والله شيخ شيخ لكن شيخ هو الدليشدي رحمه الله تعالى قوله فليح بصيغة تصغير هو فليح بن سليمان أبو يحيى المدني من طبقة مالك وهو الصدوق تكلم بعض الأئمة علماء قالوا كهد لهم في حفظه إنه سن حفظه في عنين حوقا عنباريا ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام حديث أحكامنا إمام البخاري ما بقدر يشنب شيخا إلا ما توبع عليه وحي اللي راعي مهني وح متابعة يجتبع دنا أحكامته واحتياضي البخاري رحمه الله تعالى وحسك وعدي إيو قصص إيو هلا هسكليه الشيخ ودل يشدا وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده وهذا منها ومواعيد آداب الشيخ وحوصه صاري يوحي وافقيبه قولوا كلو الشيخ أفراد دي سكمده هو وكل نوعه لقى هذلي وهذا منها كان ضعيف فلاس لقى هذلي أي الشيخنا وكمده هي قال حدثنا فليح بن سليمان المدني بخاري مسلم أبو داود الترمذي انت وحبي كوريين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحدثنا إبراهيم بن المنذر المدني بخاري ابن ماجه الترمذي أي سجن وحكوريين قال وحير إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح وبخاري النسائي بن ماجه سدح ذو وحبي كورين محمد بن الفليح قال وحير محمد بن الفليح حدثني أبي السابق في الإسناد وحدثنا فليح حاسي أبي سوى فليح هذا أنصار مرني حدثني أبي قال أبوه حير حدثني هلال بن علي المدني من رجال الجماعة رجال الجماعة كجر العطاء بن يسار وأنصار الجرني مولى ميمونة أضون كيدوها عن أبي هريرة قال بينما وقت النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فضل دحديث وكسوغنيهي يحدث حال القوم قوم كان وحديث آخرنا جاءه أعرابي من أعرابي هرباديها النبي أيمت صلى الله عليه وسلم فقال مركز أعرابي وحر متى الساعة ساعة قيامة وقرمة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وأسكسي تغي يحدث حال قومك وحديثك وشيغاي ninkii saa'ilka ahay uma jawaabin rasuulku sallallahu alayhi wasallam illa qolo kale masaa'il u sheegay rasuulku waa mashquulsanay sallallahu alayhi wasallam qofka caalimkaana aadaabtaas looga baahan yahay hadduu qolo kale cilmi u sheegayo qoladaas cilmiga inuu u dhameystiro markaa ka bacdina saa'ilka uu soo laabto faqala ba'd alqawm qomkii qaarkooda waxay yiraahdeen meesha fadhiyeen sami'a ma qaala rasuulku waa maqlay acraabigu hadalka uu yiri fakariha ma qaala rasuulku wuxuu ka haday sallallahu alayhi wasallam hadalkii acraabigu yiri ورسولك لبصدي رسولك ومغلاي وقال بعضهم أصحابتي قاركودنا وحيرهن بل اسكدافل لم يسمع هذا الأعرابي النبي ما مغلن صلى الله عليه وسلم حتى إذا قضى حديثه حديث كيس مركو لما يستي رسولك صلى الله عليه وسلم أيو قال رسولك صلى الله عليه وسلم أين السائل عن الساعة كي ساعة ويديني ومركي قوم كي علمي مسائل كي ودمي حكمتي ودمي marka ka bacdi soo jeestay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ana qofka looga baahan caalimku inuu sidaas dadka u kala tartiibiyo sida loo soo kala horeeyay mar walba qala wuxuu yiri as-sa'ilu ayna as-sa'ilu sa'ilki an as-sa'a awi uraahuda wa jumla mu'tarida way khabarkii mubtadihi soo kala dhex gashay uraahu waxaan malayna wa shakiguna wuxuu ka socdaa markaas Muhammad ibn al-Fulayh as-sabiq fi al-isnad dib ullahu qala hadathana Muhammad ibn al-Fulayh xasay qofka shakiyay sheekhaas riwaayada ku shakiyay wuxuu yiri Muhammad ibn al-Fulayh uraahu waxaan malayna wa abihi xadiiska ka qaatay abahay qala fi hadisihi ama fi isnaadkiisa inuu ku yiri oo asagoo rasuulka sallallahu alayhi wasallam isnaadkii dheeray wadaya ayna as-sa'ilu 'an as-sa'a saas inuu rasuulka ka wariyay bisanadihi al-muttasil sanadkii muttasilka ah hadathani Hilal ibn Ali an Adaa saas u si xiriir ula jeeday ilaa isagoo abihi nabiga lama kulmine sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi uraahu qala Muhammad ibn al-Fulayh wuxuu yiri uraahu abahi waxaan malayn isagoo fi isnaadihi inuu ku yiri oo fi hadisihi uu ku yiri ay qala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ayna as-sa'ilu 'an as-sa'a laakiin riwaayaad kala badan waxa la hayaa wax shakiya aan lahayn oo lafdiganba inuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam oo sidaba uga sugnaaday oo shakiba uusan jirin ayaa riwaayaad fara badan laga wariyay xaafidku wuxuu ku leeyahay qawluhu qala ayna uraahu as-sa'il بالرفع على الحكاية وأراه بالضم
أي أظنه والشك من محمد بن فليح شك وحو كسعدا شيخ اللي محمد بن فليح ورواه الحسن بن سفيان حديث كوري غيره عن عثمان بن أبي شيبة كوريا عن يونس بن محمد عن فليح وآبيه الشيخ شكينا آبيه سيكوريا حرتاننا ولفظنا وحواها أين السائل ولم يشك حرتي كلو أبيه أولها ما شكنا أيه حرتاس سوى أم باشكي ثم رتد مركز شكي أسوق بسوا كسعدا لفظنا ولفظ ثابتة وأسوى شكل هنا الله يابا قال مركز وحو يري ninkii saa'ilka haa ana ya rasuul allah haa baraaruga ana aniga ya rasuul allah rasuulka ilaahay qaal wuxuu yiri markaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam fa idaa diyat al amanatu fantadir saa'a amaanada markii la dayaco saacada qiyaamaha markaa sugu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam oo waxa weeye ashraadu saacu u sheegay calaamaadka qiyaamaha lagu garanayo ayuu u sheegay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri markii amaanada la dayaco markaa saacada qiyaamaha sugu oo khiyaanadu ay badato amaanadiina ay yaraato markaas waa mid hadda waqtigan la taagan yahay ilaa bacd alxadiis ay ku soo arooray xataa yuqaala fi bani fulan rajulun amiin in la leeyahay qabiilkaas oo dhan waxaa ku dhex jira inay imanayso in la yidhaaho hal nin oo amiina laga helaa hal nin oo amaanada gudan karo wixii lagu aamino loogu iman karo ayaa qabiilka dhan ka jira in la yidhaahaba qaala wuxuu yidhi markaa saa'ilkii kayfa sideeba idaacatuhaa amaanada dayacideeda waa see qaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam idaa wusida alamru ilaa gayri ahli fantadir saaca arrinka markii loo tiiriyo ilaa gayri ahli arrinkaas ahalkiisa gayrkii markii loo tiiriyo arrinta qof aan ahal u ahayn kana soo bixi karin markii arrinka loo dhiibo fantadir saaca saacadda markaasu oo wax lagu aaminsanaa qof khaa'ina wax loo dhiiban qof shaqadii aan ka soo bixi karin ayaa magac kale iyo qabiil kale iyo casabiye kale iyo shaqadii loogu dhiibaa qof aan ahal u ahayn aan wixii dhammaan loo dhiibay adduunkii dhammaan marka waxaa weeye yuqallibuuna addunya ra'san calaa caqibu madaxa umuurtii oo dhan ayaa loo gedinaa majihiina koraa loo taago markii sidaas oo kale dhacdo wixii laysku qaso markaas saacadda suguu yidhi waa ashraadu saaca rasuulku sala allahu alayh wasalam qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacaala baabu man rafaca sawtahu bilcilm haadaa midkani baabu man qofuu u baab yahay qofkaasoo rafaca sawtahu codkiisa kor u qaaday bilcilm markuu cilmiga iyo casharka akrinaayo qofkii codkiisa kor u qaaday u baab yahay oo baabkan sheekhu wuxuu u deliishaday in yacni rafcu sawti bilcilmi ay tahay jaa'is bixasabi alxaaja oo jaa'is ay tahay bal mustaxab ay sunno tahay bixasabi alxaaja codkuna mar walbaba aad ku xadidayso jamaacada agtaada joogtaada codka ku xadidiyo dee marka rafcu sawt loogu baahan yahay waa dad fara badan markay agagaarkaaga ay fadhiyaan wax kaa dhegaysanay laakiin hal qof iyo laba qof marka aad u sheegayso ayagaad ku xadidi codka markaas marka dadku hadday fara badan yihiin codkaagaad kor u qaaday mar walbaba bixasabi alxaaja inuu yahay xadiiskii tusinaayu sheekhu noo sheegi doonaa raximah allahu tacaala qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacaala xadaثna abu النuعmaan waa sheekh hadda aan soo marayna saabiq fi isnaad qala wuxu uhi abu النuعmaan xadaثna abu cawaana wadax bn cabdillah alyashkuri can abi bishrin wa jacfar bni iyaas albasri min rijaali اljamaca can yusufa bni mahaka yusuf bni mahaka almakiy min rijaali اljamaca can cabdillahi bni camr bni alcaas ula jeeda qaala wuxuu yihi saxaabigaas takhallafa cana nabiyu nabigaa naga gadaal maray salى اllahu alayh wasalam fii safratin saafarnaaha safar aan safarnay ayaa nabigu naga gadaal maray salى اllahu alayh wasalam faadrakanaa rasuulku waa na soo gaaray marka ewel waa naga gadaal maray waa naga dib dhacaye rasuulku waa na soo gaaray salى اllahu alayh wasalam waqad xaal arhaqatna asalaatu salaadda iyadoo markaasna dabooshay oo waktigii salaada la gaaray ayuu noo yimid rasuulku salى اllahu alayh wasalam salaadaas hadda riwaayada bukhaari waxay ku tahay mubhamo waa la ibhaamiyey laakiin waxaa caddeeyey riwaayadii saxiixu muslimka aanu ku soo qaadanay oo waxaa ka caddaan badan riwaayadii saxiixu muslimka oo waxay riwaayada saxiixu muslim tacajala qowm cinda alcasri qoomaa degdegeen cinda alcasri marka salaadda in casrka loola jeedo riwaayatu muslim fii saxiixihi tacajala qowmun cinda alcasri degdegeen fatawada-uu waa weysaysteen wa hum cijaalun iyagoo degdegsanay weysaysteen wa acqaabuhum taluux lam yamasahaa maa iyagoo ciribtooduna aysan wax biyaa taaban ilaa way degdegsayn degdeg boogsiisay ku weysaysteen cirbihii iyagoo wax biyaa aan marin ay saasay usoo degdegeen faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam weylun lilacqaabi min annaar asbiqu lwudu riwaayatu muslim fii saxiixihi saasay ahayd walxaalu rasuulku sala allahu alay wasalam na soo gaaray naxnu natawada aan weyse qaadanin fajacalnaa waxaan gudagalnay namsaxu calaa arjunina lugaheenna inaan masaxayno fanaadaa rasuulku waa dhawaaqay sala allahu alay wasalam biaclaa sawti meeshaas way meeshuu ka deliisanayo sheekh baabu man rafaca sawtahu bilcilmi biaclaa sawti codkiisa meeshii ugu sarraysay uu rasuulku ku dhawaaqay sala allahu alay wasalam weylun lilacqaabi min annaar uu yidhi maratayni aw halaatan weylun halaag
للأعقاب لأصحاب الأعقاب عربيالك أصحاب تودا هلاك وسقناده من النار النار تحقيدا هلاك وسقناده dadk ciribtii oo qallalan ka tagay oo weesaliba aan gaarsiinayn meeshii loogu tala galay kuwaasi waa ahlu naar yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam riwaayatu muslim fi sahihi ayana xadiiska ka sii waadixsaneedo ta'ajjala qawmun 'inda al-'asr fatawaddaw wa hum 'ijal wa a'qabuhum taluh lam yamassaha ma'un iyadun biyo taabanba faqala sallallahu alayhi wasallam waylun lil a'qab min an-nar قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا مثل باب قول المحدث قفك محدث كأه وحديث كآخرين هي قول كيس أبابي هاي ويراه حدثنا ويراه أو أمس أخبرنا ويراه وأنبأنا ويراه هل بينها فرق أي أبابي وفرقية miya u dhaxeeya alfaadaas wax farqiya miya u dhaxeeya oo qofku markuu sheekhiisa xadiis uu ka warinayo inuu yiraahdo hadathana fulan iyo inuu adeegsado akhbarana iyo inuu yiraahdo anba'ana ama inuu yiraahdo sami'tu oo lafdu sama' uu adeegsado lafdu sama' lafdu tahdid lafdu al-ikhbar lafdu al-inba kullu bimacna waahid miya ma wada banaanyihiin mise sida mutaakhiriinta qaarkood ay u kala xadideen miya la kala xadida madhab al-bukhari rahimahullahu ta'ala wa ba'daysan doonaaho wuxuu ku cadayn doonaa la farqa bayna hadhihi al-alfaaz 'inda al-bukhari alfaadan wax farqiya ma leh darabta anbaana oo ta'biri karta darabta waxa ta'biri karta hadathana darabta khabarana waxa doonto ayad markaas aad cabiri kartaa laakiin mutaakhiriinta qaarkood istilaaxaad ay leeyihiin oo way kala khasiseen oo waxay yiraahdeen hadathana waxa loo isticmaali karaa wixii lafdu sheekhu uu ku dhawaaqay oo lafdiga sheekha aad ka maqashay ayaad dhihi kartaa hadathana fulan lafd al-ikhbarna al-qira'a ala sheekh aad u isticmaali kartaa yiraahdeen wixii sheekhu isagoon hadlaynin aad ku dul akhriday kitaabka bukhari aad ku dul akhriday sheekhi isagoo ma hadlayo waa aaminsan yahay markaas waxaad dhihi kartaa akhbarana fulan lafdu anba'ana waxaad u adeegsan kartaa yiraahdeen ijaazada markii sheekhu kitaabka sahih al-bukhari uusan ku akhrin laakiin uu ku yiraahdo waa ku ijaazo siiyay bukhari gan ku ijaazo siiyay markuu yiraahdo markaas dhihi kartaa anba'ana marka alfaadii way kala duween mutaakhiriinta laakiin bukhari agtiisa madhabkiisa iyo madhab salafba waaba isku midba alfaadan oo dhan adilo waaweyn sheekhu waa u daliishan doona وقال الحميدي حميدي wuxuu yiri waa sheekhiisii kitaabka uu ku bilaabay horaan u soo qaadan jirnay Abdullah ibn Zubayr al-ma'ruf bil Humaydi oo awwal isnaad ba sheekhu ku bilaabi jiray وقال الحميدي wuxuu yiri كان عند ابن عيينة وسفيان بن عيينة لازم شيخه سفيان بن عيينة 19 سنة هران أصمرني سقال يتبن سنة شيخي علم كقادنا أي حميدي كان عند ابن عيينة سفيان بن عيينة أكتي سوحا هذي حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وحي هانجرين الفاضاس واحدا شيخاسو اسكم ندوي يديه جرا قراءة على الشيخ واستعمال السماع من لفظ الشيخ واستعمال الإجازة وحاد دونته وحوالله كلا صاري ماي ساسا يديه جري تقديم كهذا هرمرينت بخاري رحمه الله تعالى ومذهب كان هرمريي وحي تسنى إنه مذهب كان رجحي يسب إلا وحو الشيخ سو هرمريي حميدي وشيخي سكشيغي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا فاسمرك وحي كتسنى مذهب البخاري وياهي ترجيح هذا المذهب مذهب كان نرجحه وقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود وحو يري سقنا لفظ قالوا استعماله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شيء والحال هو الصادق المصدوق رنلو وياهي لونا رميه رسولك صلى الله عليه وسلم مرك عبد الله بن مسعود مرك وحو أديك سدي لفظ حدثنا وقال الشقيق نوحو يري عن عبد الله بن مسعود رجل لا الشقيق كوفي وهاي عن عبد الله وحو كشيء سقنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة النبي كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا نحن كنا عبد الله بن مسعود أديك سدي أحاديث النبي وكما قال صلى الله عليه وسلم وأديك سدي لفظ السماع سمعته فرنا محو أديك سدي لفظ حدثنا وهذا أديك سدي قال حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي يسقون وحو يري حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين وأسقون وحو أديك سدي لفظ التحديث لفظ التحديث ويسقون أديك سدي مرك أريداس إن كل بمعنى واحد يهين أي حديث تاسي أي دليل ويهين وقال أبو العالية يسقون وحو يري أبو العالية أسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين وأبو العالية الرياحي مقعي سنة رفيع
رفيع أبي العالية الرياحي أسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين وصو إسلامي أبو العالية وحويري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس حديث وحكى قاضي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلدي في دحديسنا وقوري يروي رسولك إسقنا صلى الله عليه وسلم عن ربه إسقنا وكسي ورنا يو حديث القدسي عن عنا لو كاني حديث القدسي عن عنا لو كان ويو أبو العالية الشيخ يسوع وقوري لفظ عن ابن عباس عبد الله بن عباس الشيخ يسوع والنبي صلى الله عليه وسلم وقوري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه marka xataa cancana inay isticmaalaan oo alfaadda waxba dadkii mutaqadimiinta ahaa waxba aysan kala geynayno kuwan oo dhan waxa weeye waa bayaan alfaadan wuxuu la jeedaa sheekh raximahullahu tacaala waa bayaan lixukmi alcancanati wa xukmuha alwaslu cinda hubuuti alliqa oo cancanada nafteedu inay yani mawsuul tahay oo xadiiskaasi xadiis mutasil uu noqonayo cinda hubuuti alliqa haddii kulan uu sugnaado kama huwa madhab albukhaari madhabka bukhaari ba hadduu sidaba ahay labada sheekh oo cancanada wax ka warinaayo ilaa wuxuu shardinayo inay kulmeen walow mara waaxida ba allah ka dhigay in la xaqiijiyo inay kulmeen wa qaala anasna wuxuu yidhi can النبي صلى الله عليه وسلم يرويه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وكورناي عز وجل والصحابي يسقون وحو استعمالي عن يسقون استعمالي وقال أبو هريرة يسقون وحو يري عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل يسقون عن استعمالي مركز صحابته كلامك جيجرين لفظ السماع لفظ الإخبار لفظ التحديث لفظ العنعنة كلها بمعنى واحد ساس مذهب كاسون يسقوا رجحي الشيخ رحمه الله تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني من رجال الجماعة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني من رجال الجماعة سمر الجني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر وحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر جيدها وحاكمدا شجرة جيدها كمدا شجرة الله يسقط ورقها على نهد وسندعين وجمع ورقة لجمعيه اسم جنس جمع على مهد وسندادين وعلى مهد وسندعين وإنها شجرة مثل المسلم وقفك مسلم أي لم يتها وشجرة سيدة حديث كنور شيء قدونا وقيت كتمرتها اللي رجل الله قيت كتمرتها منافع ليسا بدن قفك مسلم كان منافع ليسا وإني بدنت منافع ليسا بدنه مضر ليسا يرتهي وإنها مثل المسلم شجرة سوى مسلم كوكالة فحدثوني إيش ما هي وحي تهاي رسول صلى الله عليه وسلم قيت كعلمين سندادين oo muslimka kale oo manaaficaadkiisu ay badan yihiin faxadithuni ma hiya waxay tahay shajaradaas ii sheega marka waxa ka dariishanaa bukhaari rahimahullahu ta'ala erayga faxadithuni nabiga isticmaalayba sallallahu alayhi wasallam lafdu tahdith uu nabigu isticmaalay sallallahu alayhi wasallam waxa kale oo haddana la hayaa xadiiska naftiisa riwaayo kale waxa noo imaan doonta markii aan gaarno kitaabu tafsir عند البخاري markaan gaarno riwaayatu naafi' an ibn umar waxa noo imaan doonta nafsu hada alhadith akhbiruni ma hiya geedkaasi wuxuu yahay ii sheega haddana nabigu muxuu adeegsaday sallallahu alayhi wasallam lafdhu al-ikhbar riwaayatu al-ismaaciili an naafi' an ibn umar waxay ahayd fi nafsi hada alhadith anbi'uni ma hiya shajaradaas waxay tahay ii sheega marka nabiga naftiisa sallallahu alayhi wasallam waxa meesha ka cad inuusan kala saari jirin alfaadan kalama saari jirin rasuulku sallallahu alayhi wasallam maxay marna nabigu wuxuu adeegsaday sallallahu alayhi wasallam akhbiruni marna hadithuni marna anbi'uni uu adeegsaday sallallahu alayhi wasallam baraka alayhi marka waa adilla waaweyn oo bukhaari ula yimid madhabkiisa uu ku xoojinayo faxadithuni ma hiya fawaqa'a an-nas dadka waxay ku dhaceen fi shajar al-bawadi geedihi baadiyaha ayaa afkaartoodii iyo maskaxdoodii ay ku soo dhaceen waa la fikiray nool geedihi baadiyaha lagu fikiray qala abdullah wuxuu yiri abdullah ibn umar ووقع في نفسي أنا نفسي waxaa ku soo dhacay أنها شجرة النخلة قلت مراتك إنه يتاهي شجرة فاستحييت واحد الشوضي ثم قالوا مركاسي وحي راهن حدثنا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة وقلت كاتمرت رسولك صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ومنافع ليس أي بلانتهي باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا مثل كان باب طرح الإمام imaamkii tuuridiisii u baab yahay almasalata masalada calaa asxaabihi asxaabtiisii uu masalo ku dhex tuuro liyakhtabira si uu u jarribo maa shay si uu u jarribo shaygaasoo cindahum asxaabtiisa agtooda ahaado min alcilmi ee cilmi ah sheekha iyo imaamka in waxaa u habboon inuu fii bacdi alaxwaal talaamiiddiisa iyo asxaabtiisa inuu mas'alo ku dhex tuuro si uu marka u ogaado bal cilmigii intaa uu sheegayo inay fahmeen iyo inaysan fahmin nabiguna waa isticmaali jiray sala allahu wasalam wabaarak caleyh masaa-ishaas oo asxaabta dhex dhigi jiray rasuulku sala allahu wasalam wabaarak caleyh qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacaala xadahanaa khaalid bnu makhlad alkuufi
khaalid ibnu makhlad alkuufi imam الbukhaari raximah اllahu tacaala si toosu uga qaaday walakina albaqiya biwaasida culimmada kaleo sitada baaqiga ah waasiday wax uga qaadaan khaalid ibnu makhlad ilaa aba daawuud maahane inta kale iyaguna waxay uga qaadaan waasido qaala xadaثanaa sulaymaan bnu bilaal ilmadani min rijaali اljamaca soo marnaye qaala xadaثanaa cabdullahi bni dinaar can ibni cumar can الnabiy salى اllahu alيyh wasalam qala wuxu rasuulka aleh salى اllahu alيyh wasalam ina min ashajarati shajaratan laa yasqudu waraquha wa inaha mithlu lmuslim xadiثuunii ma hiya masaluu dhex tuuray waay caalimku inay sunno tahay fi bacdi اlaxwaal inuu masale asxaabtiisa ku dhex tuuro si uu u jaribo bal inay cilmigii fahmeen qaala wuxuu yihi marka cabdullahi bni cumar fawaqaca annaasu fi shajari اlbawaadi qaala cabdullahi fawaqaca fii nafsihi anaha nakla ثuma qaaluu xadثna ma hiya ya rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala hiya الnaklatu uu yihi rasulku salى اllahu wslam wbaaraka calayh marka hadda xadiiskan sheekha raximah اllahu tacaala hadduuba noo soo sheegaye waa xadiiska mukararka ah ayuu isaguna ka mid yahay horena waxaan usoo sheegnay muqadamada aan uga soo sheegnay ana albukhaari laa yukariru xadiisa ila lifaa'ida bukhaari xadiis sooma celiyo ilaa faa'ida waxba un ka bedelan wixii aan soo marnay hadda xadiiskan isnaadkaa bedelano midka hadda aan soo marnayo kii hore sheekhiisu wuxuu aha qutayba xadaثanaa qutaybatu xadaثanaa ismaaciil bnu jacfar can cabdillahi bni dinaar kana shuyuukhdiisa waxa weeye waa khaalid ibnu makhlad ilkuufi qaala xadaثanaa sulayman qaala xadaثana cabdullahi bni dinaar marka isnaadkii xadiisku inuu isnaad fara badan iyo duruq fara badan uu ku yimaado waa faa'iido weyn wallah subxaanaه wa taعala